qof wax bixiya oo wax bixin oo bixinaya daraadeed faqri u noqday lama sheegin qof wax ilaaliyay oo ku bakhiilay oo ku guulaysto liimaan ku gaarayna lama sheegin bal u fiirso qofka wax ku bakhiilo wax haysta wixii sana ku bakhiila waajibaadkii uga bakhiila khayrkii iyo nafciga uga madda uga bakhiila ilaahay agtiisa amaan kuma leh dadka agtoodana amaan kuma leh bal u fiirso qofka nacfiga dadka u leh ilaahay agtiisa amaan buu ku leeyahay dadka agtoodana wuxuu ku leeyahay amaan iyo khayr baa u taala maalin buuna u baxsanayaa xaaladiisu adag tahay khayrka uu la baxayo marnaba ku qadimhayo aakhira intaan la gaarin adduunyada u baxsanayo imisa ilaahay ku caafiya dad anfacay fuqara ah oo masaakiin ah imisa ilaahay amraad uga dul qaada dad jirana imisa ilaahay ku anfacay ولذلك الإمام الشوكاني بدر الطالع وحو كسو قولنا هي قصة عجيبة قصة سوحي أهيد نمبا وحو لها بارير وحانا كل حيال عيل كاس بيرتا كل حيال بيرتا سكور ورابية مساجد بو ماشي كدس مساجد أيو دس dad badan oo sidaas ma leh masaajidku habeenkii wuxuu soo qaadaa masaajidka la soo aadaa faynuusti oo masaajidka ku iftiimin lahaa iyo cashadii ayuu soo qaataa masaajidku soo dhexdhiga hadduu dad ay yimaadaan masaajidka way la tukadaan cashadana waa siiya hadduu dad waayo cishihiisu iska tukadaayo salaadiisa عشادينا أسقى عنا قريبوس كجس الله نقن كاسولا فينوستي عشادي بس لا سوق هذا مالين تيدم به أيوه هو ضمعي عيلكي أو قري أو بيجريي إن لا قضاه أسقى يويل شيس عيلكي بيقوديتكم بالله به أبيه بهوس كده عيلكي مال كستوى إسكجس ودمي جبي كسيبه ilmihii waxay isku dayeen inay ceelkii qodaan oo aaba ka balraadiyaan oo badbaadiyaan waxa u soo baxday inaan waxba laga qaban karin ceelkaas inuu dumay waxay uga tageen oo yiraahdeen qabrigiisa baa ilaahay ka dhigay naga wado sidii bay iskaga daayeen 6 sano ka bacdi ayay qabrigii qodeen ayagoo oranaya ceelkii aan bal fiirino ayay meel kale geesa ka qodeen waxay ugu tageen aabe oo nool ayay meeshii ugu tageen way yaabeen soo bixiyeen bal waran bay yiraahdeen wuxuu yiri markii aan ceelku dumay meel yar oo god abaan galay soo dumay waxa isku kay gooyay dhagax weyn baa fuulay iridii meeshaas wixii soo dumay oo dhan iga badbaadiso aan ku jiro ilaahay iga badbaadiyay anoo mugdiga ugu weyn adduunyada mugdi la maro ku sugan ayaa waxa ii soo galay faynuusti iyo cunadii aan qaadi jiray oo isla socda ii soo galay faynuusti baa ii timaada iftiinkaas baan helaa cunadii aan qaadi jirayna meesha ay ugu timaada cunadayda iska cunaa faynuusteedana waa iftiinsadaa intaasaan halkan ku soo mooday oo ku jira qofka adduunyadan jooga sadaqada uu la baxaya ajaa'ib bay leedahay aad iyo aad nuuciyaala oo kala duwan ahlu cilmiguna in badan ay soo guuriyaan ajaa'ib dhacda adduunyada markuu joogay hadda waxay uga tala galeen nin dhintay laakiin nuxurkii uu sameey jiro khayrkii uu sameey jiray intuu sadaqa qaada maalin walba masaajidka uu geynayo iyo faynuusti iftiinka uu ku nuurinayo baytka ilaahay ayaa loogu nuuriyay mugdiga inta leeg asagoo ku jira ilmihiisina ay ka quusteen ayaa halka loogu iftiimiyay qofku marka nacfiga uu leeyahay oo khalqiga uu leeyahay marnaba waay maayo waa helaya
ilaahayna subxaanaه wa tacaala wuu siinaya